caawa ka cudur daaranayaa habacsanaanta igu soo siyaatay insha Allah habeen dambe si nabada u wada qaadanayna because Google Meet ka badan ama isticmaalo software kala isticmaalayno oo aan ku soo gudbino sessionada online ka marka caawa farsamayga socoto haddii aad aragtaan in between ina joojinayo waa garaa lahaanaysan of course waaye aan hore u sii wadana marka mawduuceeni so wire marka badana waxa la isticmaali doonaa fiilooyin la isticmaalayo of course meel alla meesha ku aragtay in la isticmaalo fiilo haddana ay tahay hal building nooca network aad ugu magac dari doonto waa LAN ama local area network okay local area network properties kiisa number 1 waxa uu ah in la isticmaali doono switch ama hub in la isticmaali doono cable in ma aragtay hal meel laga maamuli doono devices kaas oo sidoo kalena waxaad ku ogaan doontaa astaamihiisa local area network in hal qof uu maamuli doono kaliya one network administrator joogo asiga wuxuu sameynayaa marka port hebel in la ogolaado port y in la diido computer x in la dimo yani waxa soo dhan waxa sameynaya one network administrator okay qolkaas uu mas'uul ka yahay markii aan rabno inaan la xiriirno for example qof aad nooga fog let's say tusaalaha ku qaadana meeting right this meeting aan waxaan joogaa xafiiskayga idinkana waxa laga yaabaa qaarkiin xafiiskiina inaad joogtaan ama xaafadaha aad joogtaan okay xafiiskaada waa local area network soo keegana waa local area network shirkada internet siiso adigina shirkada internet siiso communication keena marka dadka ay soo dhaxmarayaan shirkadaha ay soo dhaxmarayaan ya waxa waa aqoonsanayna WAN ama wide area network okay good so kaasa marka waxa uu aqoonsanayna inuu yahay WAN okay maanta communication keena caawa inuu possible noqdo waxa mas'uul ka ah marka wide area network oo WAN okay si marka dadkan oo LAN-ka iyo WAN-ka loo maamulo loo xakameeyo waxa la dejiyay marka wax loo yaqaan protocols waxay muhiim u yihiin in laba brand ama laba qof ama laba computer aynan sameynin wax caqabad ah okay caqabada maxay tahay let's say device kan aad horteeda yaalo shirkadda soo saartay waxa loo yaqaan Juniper right Juniper waxay communication la sameyn kartaa device kale oo Juniper ah Soma device kale ay xiriir la sameyn karto malaha Soma sida caadiga laakiin si loo ogolaado in device kan uu device kale ama shirkada kale xiriir oo la sameeyo waxa waajib ku ah in loo sameeyo sharci Soma protocol in loo sameeyo isku afgartaan protocol wax kale ma ahan waa rules diyaarsan ama standard diyaarsan kuwaas oo suuri gelinayo laba brand oo isku mid ahayn inay communication sameeyaan hadda session kan idinkana waxa ugu wada fadhisaan inaa Soomaali ahay idinkana Soomaalitiin luqadan ku wada hadlaynayna Soomaaliyeed Soma daad luqada ku hadlayna marka waa protocol waxa suuri gelinaya ani idinkiina isfahmo Soma haddii af Faransiis aan gashto ama Talyaani aan gashto idinka Soomaali ah waxa aad idinku adkaanaysa marka communication ka sameeyna ina fahantaan right that's why marka protocol ka loo sameeyay inay isku fahmaan computers in this session waa ku baranaynaa marka protocolska noocyada ay yihiin okay noocyada ugu caansan marka networking nooca ugu horeeyo waan soo xifdina waa naqaana waa local area network haddii imtixaan noqoto haddii shaqo noqoto waa wax lagu challenge gareey doono oo lagu dhigi doono maxay tahay local area network xagee laga helaa sidoo u shaqeeya adiga markii aad shaqo codsaneedo ama ay tahay su'aal technical ah weliga haraadsanin wax definition haraadsanin waxaas u sameeya okay oo ma aragtaa u jacburinin mar waliba as a network admin waxa laga rabaa deeply ina u fahanto systemka aad ka hadlay why haddii aan ku yiraahdo local area network ii sheeg maanta waa inay dhihi kartaa local area network wuxuu noo suuri gelinayaa in communication oo sameeyo is easy communication kala sameeynaa maxay tahay waxa isticmaalana cables isticmaalana switches isticmaalana this network wuxuu ka shaqeyn karaa kaliya hal xafiis ama hal area ama hal building ka saacada ilaa 30 biyaan ahaado doro okay inside that building communication ka dhaxaya waxa uu aqoonsanayna local area network okay let's say local area network ga xafiiska maanta Muqdisho ku lahaay waxaan ka sameeyay degmada Wadajir local area network noqonaya
haddana waxaa ka samaystay cabdicasiis local area network oo noqonaya right haddana waa gudba Kenya ka samaystay waxaa rabaa marka xafiiska Kenya yaalo iyo xafiisyada Muqdisho yaala inay communication sameeyaan communication-ka nooca u suuragelinaya waxaa u aqoonsanaynaa wide area network 1 okay Kenya iyo Muqdisho antenna iskuma aadi karo aad u korfogeyn right fiilo oo cover cable ina isticmaalo xafiiskayga Muqdisho inaa ka jiida Kenya ma gaarsiin karin sax laba way baa ku gaari karaa Kenya waa in badda aan soo marno fiber waa idin tusaya hadduu ilaahay okay ama inaan samaysano satellite these two ways waxaan u suuragelinayaa marka wide area network communication inaan ku sameeyno waa tahay waaye magaalada dhexdeeda waxaan ku leeyahay ilaa 30 xafiis waxaan ku leeyahay degmada Hodan Wadajir Cabdicasiis maxaa la yiraahdaa Hodan waxaas oo dhan xafiis ku leeyahay waxaan rabaa marka anagoona qarash bixinin dhibaato badanna marin bilaa internet dadkaas inaa isku xiro okay nidaamka dadkaas la isku xiraayo marka waxaa loo yaqaanaa MAN ama metropolitan area network waxaan anteeno oo magaalka buuxo oo ordaya arkaysaan dhamaantood يا إلهي يقان عاو إنترنتنا ما هايو connection كينا ويرو بايا وايرلس كسومال رنمي مال انجينير اوكي هو مال mar kale waa ka cudur daaranayaa qadka iga go'ay okay so teamka marka caawa nagu cusub aad idin kala gelinayaa session keena inuu ku bilowdo gogo aad u tiro badan okay ma dhici doonto hadduu ilaahay naga session waxaan ku qaadanaynaa si smooth hadduu ilaahay way so magaalada communication-ka ka jiro idin dawaqyadaas arkaysaan taawaradaas arkaysaan anteenooyinka saaran waxay noo suuragelinayaan in magaaladan Muqdisho in uu sameeyo xiriir guud noocaas marka waxa uu aqoonsanaynaa MAN ama metropolitan area network way xaafadaada waxa ku yaala computer ku yaala laptop ku yaala whatever it is okay this laptop waxa uu haysataa keyboard ku yaalo mouse ku yaalo okay wireless way so nooca communication-ka marka computer-kaada iyo keyboard-kaada sameynayana loo yaqaan PAN ama personal area network okay this network marka kaliya wuxuu u suuragelinayaa laba device inay communication sameeyaan ayagoo oo aanan jirin maaragtaa distance aad u dheer okay so haddii remote-ka aad qaadato ama aad isticmaasho mouse-kaada caadiga ah waxa ugu fog aad ku sameyn karto waxay tahay qolkaada intuu dhaxayso banaanka aad u baxdo yani communication-kaas wuu go'aya waa less than 30 meters oo straight ah loo isticmaalaa marka personal area network okay so these marka waa kuwa ugu waaweyn la isku challenge garay imtixaan haday noqoto shaqo technical ah waa inta ugu waaweyn ee la isweydiiyo inta waa ka badan yahay marka hadii waa la tixali yiraahdo types of networking طبعا wax hal session lagu soo goobi karo ma aha okay ويا ناصر قاعنا تايتي والكتا استاذ سلاك نوشر قري واو ورا هذا عاو أذنه وأذينا عاو أذي way waxa kale oo ka soo sheekeynay chapter-kan inta ka soo hadlayna wax loo yaqaan networking topologies okay networking topologies-ka waxay inoo suuragelinayaan number 1 inaan qorsheeno network-geena qaabka uu ekaala okay topology haddii aad maqashaan wax kale lagama waday waxaa loola jeedaa see loo nidaaminayaa network-geena haddii aad aragteen dawqiyadan waaweyn oo magaalada laga dhisaayo inta la dhisin ka hor waxaa la sameeyaa banner right that banner waxaa lagu muujinaa dhismaha sidoo noqon lahaa okay dabaqan quruxdiisa sidoo u muuqan lahaa anaga markaas network engineers intaana network implement gareenin ka hor ama aan deploy gareenin waxaan qoraynaa nashqadiisa iyo sidoo noqon lahaa sidii iskugu xirmi lahaayeen okay
bal kor haddii aan u laabano waxaan hadda meesha yaalo kan sawirkaana arkaysaan waa network topology wuxuu muujinayaa xiriir guud oo u dhexeeyo shirkadaha iyo local area networks si ay u shaqeynayaan so qof waliba uu arka maanta wuxuu ID ka qaadanayaa computer A inuu communication la sameeyo karo computer C okay adiga markaa taa senior network admin oo waxaan aad diyaariso qofka juniorka uu qaadanaya hadhoodii asiga isku xirxiraya si marka arrinkan uu sameeyo marka waa inuu haystaa tixraaci ama topology watan aan leenahay marka qofka vundiga ah oo shamiitada khasaayo derbiga sameynayo waa inuu haystaa habraaci cabirkii distance okay topologies ka marka commonly waxa jiro kuwa hore loo isticmaali jiray iyo kuwa waqti xaadirkan la isticmaalo right kuwa ilaa iyo hadda la isticmaalo waxa loo yaqaanaa star topology guys wax kale laga ma wado waa un switch in dhexda la dhigo kadibna lagu soo xiro computer okay si markii loo fiiriyo waxay iskugu xirmayaan hab xidigeed ama sida ka muuqata sawirkan okay this topology waa switch waxa lagu xiran marka computers kan lagu xiran kana marka waxa uu aqoonsanaynaa inuu yahay star topology okay star topology astaamaha kale ku aqoonsanaysaan waxay tahay in uu yahay centrally dhammaan devices-kooda dhan in meel laga wada maamulayo si kale markii loo fiiriyo xagga dhibaatooyinka waxa loo yaqaanaa single point of failure okay this device maanta dogo computers kan oo dhan waxay noqonayaan internet la'aan ay noqonayaan sama so noocaas marka waxa loo yaqaanaa star topology nooc kale waxaa jiro still ilaa hadda la isticmaalo loo yaqaano ring topology of course waa old ring topology laakiin ilaa hadda wuxuu ku dambeeyaa shirkadaha waaweyn marka leeyahay for example shirkadda Hormuud oo kale waxa arkaysaan magaalada Muqdisho hadii aan tusaale ku qaadan waxa ku leedahay xarumo badan ay ku leedahay soma those xarumahaas ay ku leedahay dhammaantood waxay isugu xiran yihiin hab ringkii isugu xiran yihiin la say xarunta ugu weyn waxay ku taalaa Howlwadaag ku taalaa mid kale weyn waxay ku taalaa Soobe tan Soobe iyo tan Howlwadaag way isku xiran yihiin mid kale waxay ku taalaa Cabdicasiis iyo Soobe iyo Hodan way isku xiranta hadii lacala midii Cabdicasiis ee ka go'do qaybta Hodan يعني communication ka soo go'o still Hodan iyo Cabdicasiis waxay yeelanayaan communication ay yeelanayaan for example sawirka hadda ku laaban waxa arkaynaa Hormuud iyo Golis iyo Somtel in isku xiran yihiin communication ka noocan waxa aqoonsanaynaa markii inuu yahay ring sama adiga waqti xaadirkan hadii uu ka go'o ama Hormuud ay communication ku jirta ama xiriir ku jirta Somtel still waxa awood u leedahay adduunka geeskiisa kale inaa gaarto adigoo u marayo through Golis okay this topology marka waxa aqoonsanaynaa marka ring topology okay nooc kale waxa jira loo yaqaan mesh topology okay mesh topology wax kale ma aha waxa waajib ah every device for example computer ay hada communication wuxuu la sameeyaa switch meshka markii la leeyahay waa inuu switch kana la sameeyaa printer kana la sameeyaa computer kale la sameeyaa computer B na la sameeyaa yani sida ka muuqato waxa arkaysaa each computer waa inuu computer kale communication la sameeyaa nooca network-ana marka waxaan ku tilmaamaynaa inuu yahay network hadda dunida ee iskugu xiran yihiin for example haddaan idin tuso adduunka siduu iskugu xiran yahay let's check it out haddii aan jeegareyno submarine cable waxay mar kastoo ay la socdaan ama ay diiwaan geliyaan wax allaala wixii cable la soo marsiiyay badda okay so linkiga ugu horeeyo sometimes we update gareeyaan marka qaarkoodna ma update gareeyaan this map aan fiirina marka mapkan hadda aragtaan horeba waxa go'aan ka qaadanaysaa network-an inuu yahay mesh topology okay this type of connection waxaan oo dhan waa fiilo badda dhex marayaan okay badda la soo marsiyaa wadan iskugu xiran yihiin waa arkaysan sooma this topology ama design-ka noocaana aad u adag tahay cilad maanta dee dhacdo in la cilad bixiyo of course waa la sameeyaa okay laakiin aad u adag tahay so communication-ka marka adduunka iskugu xiran yahay waxa uu aqoonsanaynaa inuu yahay mesh topology sooma waa arkaysan fiilooyinka sida iskugu laalaaban tahay so this type of networking uu aqoonsanaynaa marka mesh topology okay xafiisyada yaryar iyo maxay ahaydey shirkadaha normally mesh topology ma isticmaalaan okay laakiin markii adduunka kale communication la sameynayaan they are part of mesh topology bus topology sheeka u qaadanayna laakiin wax la isticmaalo right now ma laakiin wuxuu ahaa mowduuc mar aad ma aragtahay loo soo isticmaali jiray markuu internetka cusub ah okay haddii aan jeegareeno bus topology sawir ahaantiisa wuxuu u sameysnaan jiray sida tubada oo biyaha loogu keeno kale yay u sameysnaan jireen okay
waxaa arkaysaa hal lane okay hal fiila in lasoo qaado fiiladaasna ay maaragtaa ay leedahay connectors dhexdeeda kadibna each bc meeshaas looga talaalo okay so tanna si markaa u fiirisaan waxay soo shabahdaa star topology soo ma oo waxaan arkaynaa dhammaantood inay ku wada xiran yihiin hal meel okay meeshan marka waxa u aqoonsanaynaa ayadana single point of failure hadday tubadan inta ka go'do okay waxaa dami doona ama kala go'aya communicationka labadan dhinac okay so noocan marka nooc la implement gareeyo ama la isticmaalo maahan right now laakiin mesh topology iyo ring topology iyo waa dadka hadda active ka ah oo in badan ay isticmaali doono waxyaabaha kale aan kasoo sheekeynay oo examiskana noogu imaan doono waxaa ka mid ah networking components as professionals aaday muhiim u tahay inaan fahanno ashyaada oo ka kooban yahay networking wax markaan u sahlanaanayso in aan go-aan ka qaadano cilad haddee dhacdo waxaan u sahlanaanayso inaan ogaano dhibaatada meesha ka jirto right so each and everyone marka waxaa u dul istaagaynaa xabada u dul istaagaynaa because exam topicskeena haddii aad fiirisaan networking fundamentaliska number one waxa ah inaan fahanno router his device aad u muhiim u yahay okay so routerska marka maxaa anaga u baranaynaa routersku waxay noo suuragelinayaan number one in ay noo sameeyaan xiriirka adduunkooda ereyga ama kelimada root waa maxay waa wado sooma daad wado waxay u suuragelinaysaa qofka inay meel ka qaado geeso meel kale sooma so routerka marka anaga in technology network wuxuu noo suuragelinayaa laba network oo kala madax banaan in isku xiro for example let's go back our topology this is router okay router one this router shaqadiisu waxay tahay local area network-gaada inuu u noqdo gateway yacni meesha adiga daatada ay kusoo marayda adna daatada aa ka diraydo sida noo muuqda this router wuxuu ku xiran yahay router kale uu ku xiran yahay okay wadadan hadday kaa go'do maanta la yiraahdo jidka howlwadaag lama maraayo waxa ku furan jidkii suuq xoolaha waxa ku furan jidkii ceelash waxa ku furan yacni meel hadday kaa go'do meel kale ku furan sooma that's why marka device-kan aad muhiim ugu yahay marka waa dul istaagayna qodobadii ugu muhiimsanaayaan soo qaadanay okay teamka nagu cusubna si ma aragtay ugu noqoto cashirkooda koowaad akhyaarta hore soo qaadatayna ugu noqoto refreshment insha Allah way horta device-kan wuxuu noo suuragelinayaa inuu isku xiro multiple computer networking marka leeyahay waxa ula jeedaa xafiiskayga waa network gurigaada waa network xafiiskaada waa network and still waxa awoodnaa in dhammaanteen aan wada sameyno communication sooma this communication marka meesha aan dhex marsiinayno waa routerkaas waa wadada anaga aan isticmaalayno okay intaanan functionality-giisa u galin waxaa kaloo idinla wadaagaya adduunka routerska sida ay u shaqeeyaan of course waxaa jira website loo yaqaano BGP view this BGP view haddii aan galno website-kan waa idinla wadaagaya linkiyadooda of course kadibna inta aan ka raadino wadankeena Soomaaliya okay Soomaaliya marka qoran waxay noo soo baxayda shirkad kasto internet bixido okay any shirkado internet bixiso waxay noo soo galeedaa meesha waxa ugu horeeyay Hormuud oo aad wada taqaanaan Dalcom oo ah one of the oldest shirkad oo noo keento fiber optic okay kuwaanu idil marka dalkana way ka shaqeeyaan adduunkana way la shaqeystaan Soomaa good waxaan rabaa inaan ogaado Hormuud si ay ula shaqeysataa shirkadaha kale because ayadu waxa u taalo router u yaala sooma device-kaas sidoo ugu xiran yahay device-yada kale for example haddii aan furno autonomous system-ka Hormuud kadibna aan ka doorano graph-ka this is Hormuud xarunteeda ugu weyn waa ka yacni markaa sawirkaan isticmaalayno autonomous system-ka waxaa la soo hoosgelin doonaa Hormuud dalka dhan BTS-nada u yaalo routerada u yaalo switchada u yaalo IP-yadeedo dhan waxaa la soo hoosgelin doonaa hal ID number oo loo yaqaano autonomous system number okay this autonomous system number waxa soo imaanaya dabcan shirkadooda okay internetka caalamkan sidoo communication-ka u sameeynaayo waa sidaan Hormuud waxa arkaysan shirkado kale inay xiriir la sameeyaan Golis xiriir la sameeyaan hadda aragtaan fariinta aad dul saarayo markii aad dul saar waxa soo baxaya Golis waxa kale xiriir la leedahay Dalcom shirkadda hadda idin tusaya sidoo kale waxay xiriir la leedahay shirkad kale oo Djibouti fiila Djibouti kaga imaanaysa soo Golis ayadana waxay xiriir la leedahay shirkad kale
oo Gognet loo yaqaan oo American shirkad oo maaragtay fiber iyo waxyaabaha ku wala okay linki ay ka soo qaataan of course waxaan markaa arkaysaan topology-gaana arkeedaana u aqoonsanayna inuu yahay horta mesh topology waana wadooyinka anaga inoo fudud maanta haddii oo internetka guud anaga internet guud intoo naga soo gala hadda hormuud internetka guud intoo kasoo gala eg bartankaanu kasoo gala Gognet oo kasoo gala let's say maanta hormuud haddii Gognet ka go'do linkiga Gognet toos ugu imaanaya hadduu hormuud ka go'o hormuud awood u leedahay inay communication samayso still of course awood u leedahay xaggee say ku sameynayda because waxay internet ka sii qaadan kartaa golis maybe ayada inay siiso okay dabcan ayada siiso okay haddii golis oo ka go'a ka waran internet wada kala ma haysana of course waxa haysana inaan soo dhex marsano Djibouti inaan soo marsano internetka haddii lacala Djibouti oo ka go'a still internet ma helena yes waxa soo dhex marsanayna cable loo yaqaan West Indian Ocean cable okay ayada soo dhex marsanayna shirkadu ayadana cable keensataa badda ugu jira of course okay ka waran ayadana haddii go'do hormuud haddii linkigaas ka go'do ka waran still waxa haysana dalka ma haysana markaas this is why device-ka markuu aad muhiim u yahay waxaana arkaysaan oo hortiina yaalo protocolka ay ku rangareysan yihiin loo yaqaan BGP waa Border Gateway Protocol waa language-ka adduunka communication ay ku sameeyaan routers so way so this device aan marka rabnaa anaga in aan si deeply u ogaano intaas oo howlo noo qabanaya waxa rabnaa marka sidoo u shaqeeya soo howlahan u fulinaya say hormuud ugu suura gashay in xogteeda dhan ay la wadaagto sometimes say ugu tala gashay yani say ugu suura gashay inay la wadaagto maxay ahayd dalka waxaas oo dhan waxay ugu suurta gashay inay isticmaasho wax loo yaqaan protocol waxa idinku sheegay inuu ahay nidaam u suura gelinayo laba shay ama laba shirkad oo aanan isku shaqo ahayn oo aanan islahayn in communication ay sameeyaan that protocol marka wuxuu u suura gelinayaa fariinta laga soo qaaday in la gaarsiiyo cidii loogu talagalay okay so marka aan jijibino functionality-ga uu leeyahay marka functionality-ga router-ka uu leeyahay waxa tahay protocolka ugu horeeya oo wax ku fahmaayo loo yaqaan IP address okay IP address waa serial number u suura gelinayda code device-kaada in la aqoonso waa ID okay everybody hadda wuxuu leeyahay passport uu leeyahay passport-kaada wuxuu leeyahay ID number adiga unique ku ah hadhoodii haddii loo baahday in immigration-ka la aado ID-gaada la dhiibo automatic waxa soo baxaya shaqsiga ID-gaada soma si marka adiga computer-kaada looga aqoonsado adduunkan oo dhan wuxuu qaadan doonaa IP address asiga unique u ah inside this session isa ku baran doonaa IP-ga iyo classes-kooda iyo qaabka uu kala baxayo this IP marka wuxuu noo suura gelinayaa hadhoodii router-ka inuu go'aan ka qaato wadada ugu macquulsan ee daatadana lagu forward gareeyo maxaa ula jeedaa haddii aan ku laabano BGP view haddii aan ku laabano waxaan arkaynaa hormuud inay haysato multiple routes wadooyin badan inay haysato sama these wadooyinkan haddii aan rabno inaan go'aan ku qaadano waxaan fiirinaynaa router-kan oo golis ah iyo router-kan oo leh Dalcom yaa ii dhow oo macaamiilkayga u suura gelinayo internetka meesha ay ka rabaan Europe iyo America Australia iyo Asia meesha ugu dhow waa amarsiin kara inteeba hadda ani America toos hormuud toos ay ugu xiran tahay sama Gognet toos ugu xiran tahay wadadana marka waxay tahay the closest route ee hormuud daata ay ku marsiisan karto sama waa wadada ugu macquulsan okay si marka wadadan loo aqoonsado waxaa la sii doonaa hormuud ID address la siinayo okay this IP address hadana waxaa la xisaabi doonaa reliability wax la yiraahdo oo ah wadadan kalsooni ma la siin karaa wadadan jamkeeda ma badan traffic-geeda ma badan yahay load-keeda sidee waa okay hadana waxaa la sii fiirinayaa router-ka lagu programinayaa delay ka waran doodo delay-ga waa waxyaabaha ugu xun anagana dad gacan ka cararno in delay oo nagu dhaco that delay hadduu nagu dhaco bisaan nahay macna okay waa arkayna hadduu ilaahay inshallah in practice okay so wadadan haddii ay ii suura gelinayso America inaad toos ula xiriiraayo waxaa kaloo fiirinaynaa again routing distance okay every routing protocol isticmaal wuxuu leeyahay wax loo yaqaan administrative distance in the way ku baranayna so lacala wadadan haday noqoto risky waan ognahay in America noogu dhowdahay in aan communication la sameeyo laakiin haddii aan aragno inay tahay risky reliability-geedu uu daran yahay oo congestion-keedu uu badan yahay waxaan dooranaynaa Dalcom inaan marsiino okay this Dalcom aan marsiinayno go'aanka aan ka qaadanayno
waxaan ku base gareynaynaa IP addresska ay isticmaalayaan. So that's waxaan u aqoonsanaynaa marka internet protocol. Okay, waayo routerada marka waxay leeyihiin noocyo leeyihiin. So far waxaan soo fahanay routerka inuu noo suuragelinayo multiple networking inuu isku xiro yani oo different locations ah si uu iskugu xiro inuu isticmaalayo IP address, right? waayo noocyada marka routerska of course as a network admin waa lagu xujay doonaa shirkadaad ka shaqeynaydo waxay ku diinayda anaga router noocay isticmaalayna si marka aad u ogaatid routerska waxay leeyihiin moodalay leeyihiin noocyo leeyihiin. Okay, nooca ugu horeeya waxaa u aqoonsanaynaa xaafadaha aan ku heesano waxaa loo yaqaanaa home router loo yaqaanaa. Okay, that device wuxuu kuu suuragelinayaa un adiga inuu internet ku siiyo. protocol ma ka samayn kartid, ma manage gareyn kartid. Okay, radio OSPF ma ku samayn kartid. IP la gelinayaa statically ama dynamically, then wuxuu kuu suuragelinayaa adiga inuu wireless ku siiyo kadibna uu kugu xiro shirkadda adiga internet ku siinayda. Only intaasoo awoodaa routerka xaafadaha ka helo. Okay, bal ka waran haddii aad ka shaqeynayda business routerka maxaa ka faa'iideynaa? business routerka faa'iidada koowaad ka helayna waxay tahay horta features dheeraad ah inuu na siinayo. Sama features dheeraad ah inuu na siinayo. featureska dheeraadka maxay tahay? featureskaas waxaa ka mid ah inuu noo suuragelinayo wax loo yaqaano VPN. Okay, VPN maxaa ka wadaa? Virtual Private Network. For example, ana hadda jaamacada internet siiya, let's say. Okay, jaamacadaas waxay leedahay IP addresses oo private ah. Anna waxaan ku siiyaa public IP. waxaan u baahanahay jaamacadaas inaan access gareeyo. Si aan u access gareeyana waxaan rabaa inaan helo waddo nadiif ah. Okay, tusaale idinka siinaya. inta waxa ii yaalo VPN ii yaalo. This is my VPN. Wireguard loo yaqaano waa open source. Everybody will implement gareyn karaa haddii networkiisa uu yahay network manageable. Okay, this interface ee ku qoran tahay WG1 waa jaamacadaha ka mid ah oo aniga internet ah siiyo. Okay, jaamacadaas marka waxay leedahay local IP address ay leedahay. local IP marka leeyahay jaamacadda gudaheeda kombiyuutar badan ayaa yaalo sooma. kombiyuutaradaas waxay leeyihiin IP oo aan banaanka looga ogoleen in laga isticmaalo. gudaha bisa looga ogolyahay. Okay, jaamacaddan waxaa rabaa marka anoo xafiiskayga joogo iyo ayagoo Grace Valley ku yaalo inaan access gareeyo. si aan access gareeyo marka router u yaalo oo business router ah. that business router marka waxaan ka soo abuuran wax loo yaqaan VPN. haddii aan active gareeyo waxay waxa laga connectionka inaga go like waa active gareynayna. intaan active gareyn horta waxaan isku dayayaa inaan ping gareeyo. Okay, this is my CMD. waxaan isku dayayaa inaan waco local IP address kooda oo ah 172.16 iyo I think inuu ahaay 2.1. numberkan waa private IP jaamacadaas ku jira locally. anna locally IP address 192 aha wata ma gaari karo. laakiin one is VPN kan aan activate gareeyo. active markaan ka dhigo waxa meeshan ka dhacaya arka. ilbiriqsi kadib waxa arkaya inaan reply helayo sooma. haddaan waxa ogeedeen in network communication ko ii diiday. Okay, because hadda waqti xaadirkan aan joogo waxa u dhigmaa jaamacadaas networkeeda inaan isticmaalayo. cid ii suuragelinayna waa VPN. hadda arkaysan communication ku socdaa haddii aan deactivate ka dhigo automatic connection kaas waa laga tiraya oo waxaan ahaanayaa qof banaanka ka joogo. Okay, so feature kan cid ii suuragelinayna marka waa business router. Okay, VPN uu ii sameynaya oo anywhere u baahanahay aan network ka soo access gareynayo. waxaa kaloo leeyahay security options. security options marka leeyahay maxaa ula jeedaa? this VPN waxa la ogol yahay certain numbers ina access gareeyo. haddii aan fiiriyo for example numberadii la ogol yahay waa access gareyn karaa 192.168.100 network ah access gareyn karaa. 50 network ah access gareyn karaa. wax kaloo inta ka baxsan access gareyn kara ma laha. 172 haddii network xaggaas laga abuuro 10 ah liima ogolaanayo routerkan يعني VPN kan ima ogolaanayo in communication la sameeyo. Soma? That's why marka business router kan u isticmaaleen. router kale waxaa jira loo yaqaan core router. core router sida ka muuqata most waxa isticmaala shirkadaha internetka bixiya ISPs. ujeedka ay u isticmaalayaan waxay tahay waxaa la dhigaa albaabka ugu horeeyo ee shirkadda. adiga aad ku soo xirmayda aniga aad ku soo xirmayo. traffic ugu badan magaaladan ay ku soo wada xirmayaan. that router marka waxaa loo baahan yahay inuu ahaado more powerful. Okay, anaga marka shirkadda hadda aan baranayno oo networking ka arabna shahaadadeeda inaan qaadano waxa loo yaqaan Cisco. waxyaabaha ay superka ku tahay waxay tahay inay soo saarto switcho iyo router. Okay, page-keeda haddii aan booqano waa inta ku qorno Cisco router products. Okay, waxaa inta ku arkayaa shirkaddan productyada kala duwan ay soo saarto of course
واجب nagu tahay anaga okay networking uma baranayna kaliya inaan imtixaan ku baasno waxaan u baranaynaa deeply in maaragtay aan ka sheekeyn karno in qof suggestion aan ka sii karno in shirkadeena maaragtay ama businesska adiga aad leedahay mustaqbalka aad go'aan fiican kaga qaadan karto shirkadda marka productyada ay sameyso router-deeda mid kamid ah waxa loo yaqaan branch router markii lagu leeyahay shirkad weyn aad leedahay xarun kale samaysatay xaruntaas maxaa u soo gadaysaa shirkadaadii weyneed xarumihii maaragtay router-adii waaweynaa ma u soo gadaysaa may waxaa jira marka router kale oo simple ah loogu talagalay just branch because branchiga badanaa traffic badan lagama soo generate gareeyo that's why marka intaana model jiro adigaas network admin waxaa laga rabaa marka model kasta inaad open gareyso kadibna aad fiiriso services oo provide gareynayo for example inta waxaa kugu qoran featureski cafan telefonaan ka jawaabaya okay so kana marka wuxuu inuu suura gelinayaa in aad ka akhriso productigan featureskiisa waxyaabo uu bixinayo inta ka helaysa waa la soo degi kartaa mark sheetkiisa ama data sheetkiisa si aad in detail u akhriso okay so all products marka xaggaana ka akhrinaysa hadduu ilaahay idmo adiga marka u qaadanaya as assignment soo daraaseynayo routerska waxyaabaha lagu doortay generally waa boortiyada markii laga tago throughput ko wax ku qaadaya yani bandwidth ko wax ku gudbinayo okay 100 qof kaliya ma aqbali karaa data 30 GB clear ma aqbali karaa throughput-ka iyo bandwidth-ka waa arrimaha ugu fiican ama mudan in laga jeegareeyo routerska waayo intaan marka waxaa leenahay waa noocyada jira routerska waayo haddii aan kor u yara baxno maxaan ka faa'iideynaa ama key features ugu waaweyn aan ka filanayno routerska maxay tahay in general haddii waxaan kusoo sheegnay routerka language-ka ugu horeeya markii laga tago protocolska routing protocolska waa IP address waxaan ku sheegnay inuu yahay ID number lagu aqoonsanayo device-kaada si hadhowdii asiga communication loogu soo sameeyo ID-gaas routerska laba option waa loo geliyaa optionka koowaad qofka network admin-ka gacanta ku gelinayo si uu gacanta ugu geliyo wuxuu aadi doonaa dabcan of course wuxuu aadayaa wireless-kiisa wuxuu leeyahay of course open network and internet settings for example okay then inaad doorato ethernet network-gaada kadibna inta aad ka fiirido IP-gaada nooca u qaadanayo hadda waxaa arkaynaa DHCP inuu yahay wireless aniga ugu xiran automatic IP address aa laysiinaya okay ama waxaa ku samayn karnaa manually inaan gacanta ugu gelina ID okay this is not router laakiin routerkana sidaan oo kale waa loo samayn karaa in maaragtay computerkaada tagto IP address adiga meeshaan gacanta aad ku soo gelin you see this is waxa uu naqaan static address okay good way so ama waxaan ku siin karnaa nina DHCP oo dynamic hosting configuration protocol right now internetka isticmaaleedid haddii aad ku qorto computerkaada what's my IP address طبعا انا waxaan isticmaalayaa hadda static IP address oo public ah oo aanan isbedeleynin it's not good in maaragtay qof waliba aad tusto ID-ga public ah ma fiicno security reasons okay I can trust you right now so this number waa kan qof waliba oo rabo maanta ani communication inuu la sameeyo oo soo mari doono waa numberka banaanka ii yaala aniga device routerka xaafadda ii yaalo shirkadda aniga internetka isiisa waa numberkii aniga ugu tala gashay si aan banaanka maaragtay xiriir ugu sameeyo locally computerkayga waxaa haystaa private IP address haystaa haddii aan meesha ku qorno IP config waxaa arkeenaa IP local 192 this 192 waxay siinaysaa marka anteena dusheeda ku xiran that anteena waxay siinaysaa IP addresska so IP-ga marka si banaanka uu aado waxaa la hoos geli doonaa IP addresska waxaa jira protocol loo yaqaan NAT of course okay marka protocolo badan aan sheegayo macnaheedu ma ahan in chapterkan aan ku wada baranayo waa introduction good each and every topic aan carabka ku sheego waxaa dhici doonta in maaragtay aan dul marno okay way numberkan shirkadda waxaa laga yaabaa adiga inay ku siiso hab dynamic ah maanta haddaa numberkan aragto 3 saac kadib what's my IP haddaa tiraahdo number kala qaadanaysaa because shirkadaha qaarkood ma ogola inay static ku siiyaan hadday ku siiyaan lacag ay kaa qaadayaan lacag lagu qaada okay I think
shirkadaha qaarkood dad iska raqiis waa $30 waa halkii public IP markii aad rabto inaad qaadato hal static IP address oo ku nadiif ah ijaar waa marka $30 internetkaada ka baxsan aad maaragtay diiwanayda maxaa loo isticmaalaa public IP static haddii aad rabto inaad samaysato web server ama storage aad u baahan tahay in banaanka aad kasoo access gareyso kale markaasoo kale you have to inaad isticmaasho wax loo yaqaano public IP address okay routersku marka key featureska kale aan ka fiirinayo waxay tahay traffic management maxaa waa guys each router aan isticmaalayno waxaa soo dhex mari doona millions of maaragtay data soo mareedo datada soo dhex mareedo waxaa la rabaa in la maamulo oo la habeeyo oo qolo loo hago traffic management yaa wax ma dhaamo qofka trafficada oo dharka cadaanka oo laamiga jooga baabuurta kala celinayo wax ma dhaamo routerka qabanayo okay shaqadaas asaa qabanayo because aniga hadda data generate garanayo this traffic okay ka waran haddii faylal badan aan la soo degayo faylashaas aan la soo degayo marka routerkayga hadoonan awoodin inuu manage gareeyo waxaa dhacaysa qadka inuu culays noqdo okay waxaa dhacaya inuu dhumo wax loo yaqaano quality of service maxaa laga wadaa quality of service waxaa laga wadaa let's say 3 qof internetkaada isticmaaleen qof YouTube daawanaya qofna video call oo ku jira oo sessionkan camal ah qofna website oo akhrinaya internetka ugu badan iyo xawaaraha la siinaa ma qofka website ka akhrisanaya xawaaraha ugu badan la siiyaa mise waxaa la siiyaa qofka video call ku jiro si nadiif ah si loogu arko mise waxaa la siiyaa qofka YouTube ka daawanaya okay aqliyan aniga waxa ognahay qofka video call ku jiro in la siiyo internet speed ugu badan right because qofkaas wuxuu isticmaalayaa protocol loo yaqaan real time protocol oo qofka si live ula hadlaya hadalka uu sheegay waxa la rabaa computerka kale in laga maqlo qofka okay dabcan qaliina lagu sameeyaa video call okay so noocaas marka haddii routerka automatic oo go'aan ugu qaadanayo in la siiyo qofka video call ku jiro speedka ugu badan yaa waxa awoodaa computerkaada inuu sameeyo traffic management iyo quality of services inuu kala shaandheeyo cid mudan in la siiyo bandwidth ugu badan cid la raba in yani priority-geeda high laga dhigo go'aankaas oo qaadanayo routerkaada waa one of the best routers okay marka soo iibsanaysana waa xujooyinka ugu horeeya loo baahan yahay inaad iska fiiriyo routers qaarkood by default waxay leeyihiin security features ku dhisan waa key featureska anaga aan ka fiirinaya okay router qaarkood hadda korna ay u dhacday router aan soo iibiyay qarash badan aan ka soo bixiyay security featureskiisa ma fiirinin waxaana laga rabay routerkaas marka implement gareeno in banaanka laga soo galo okay ayadoo la isticmaalayo SSH ayadan waa nooc kamid ah protocolska uu suuragelinaya qofka network adminka device-kiisa inuu soo access gareeyo soo xaafadiisa jooga ama soo meel kale jooga okay device-kana uu yaalo dunida geeskeeda kale so device-ka aan soo iibiyay qarash badan aan ka soo bixiyay ma lahayn ama ma support gareynin SSH clear ku support gareynaya Telnet of course Telnetna ma aan wax very secure that's why marka shirkadii u diiday Telnet inay isticmaalo okay waxaan noqotay marka shirkadii aan ka soo iibiyay in mar labaad aan ula laabanaan inaan product-ga ma support gareynayo this xitaa upgrade ma yeelayo waxaan noqotay marka extra fee inaan dhiibno device-kii la celiyo yani dhibaatadaas marka si idinkeeda isku dhicin marka wax soo iibsanaysaan waxa ugu horeeya standardka company-gaada waa inaad qiimeysaa okay wuxuu yahay shirkadeeda maxaa looga baahan yahay okay standard u degsan ma SSH in lagu soo galaa mise Telnet lagu soo galo of course SSH okay waxaas oo dhan marka security featureska uu ku dhisan yahay routerka waxa loo yaqaanaa si kala firewall loo yaqaanaa okay firewall-kan ama security featureskan waxyaabaha inuu suuragelinaya marka waxay tahay encryption inaynu sameeyaan encryption maxaa laga wadaa encryption guys waxaa laga wadaa in labada qof oo communication-ka sameynaydo hadduu qof saddexaad soo dhex galo datadaas uu helo inuunan akhrin karin datadaas okay waa aragteen askartoo kale markii ay dagaalka ku jiraan ama isticmaalayaan gacankaas of course wuxuu leeyahay frequencies everybody waa maqli karaa waa public okay public waa mararka qaarkood waa jira frequency ayaga isku aqoonsanayaan saaranayaan laakiin markay hadlayaan waa aragteen luqadaha isticmaalayaan waa luqad ayaga ay fahmi karaan qofka ka soo horjeeda fahmi maayo qofka loo dhageysanaya fahmi waayo of course noocaas marka waxaa loo yaqaanaa encryption datadaada everybody hadday helaan ma awoodaan inay akhristaan yes hadday noqoto datada encrypted ma dabcan WhatsApp waa aragteen waxaa ku qoran end to end encryption noocaas marka waxaa loola jeedaa labada qof oo fariinta diraysa kaliya yaa is arkaya so routerskeena marka waa ka jeegareynayna NS9 encryptions okay operational levels marka routerska intee la dhigaa mostly
haddii aan naqaano noocyada routerska yacni home router branch router yacni intaas kala naqaano ID-giisana aan naqaano xaggee la dhigaa routerka maxaa la dhigaa ma xafiis la iska dhigaa ma data center qeybaha hoose ma la dhigaa xaggee yacni most la dhigaa routerska anaga laba u kala qaadana mid waxa uu aqoonsanaynaa edge router midna waxa uu aqoonsanaynaa core router waa laba terminology oo si iskaaga agdhow okay edge sida ka muuqato waxaa la dhigayaa raagaada markii uu diyaarsan yahay fooqa ugu sareeyo okay fiilada internetka adiga ku keenaysa si toos ah waxay u soo gali doontaa edge routerka u soo galaysaa meeshaas waxaa laga abuurayaa protocolka hadda arkayno ay isugu xiran yihiin teknolojiyada yani shirkadahan oo dhan oo loo yaqaan BGP dad router marka waxaa laga abuurayaa BGP routerka kale oo core routerka ah idinka iyo anaga iyo dadka kale oo macaamiisha dhan lagu soo xirayaa kaas marka waxaa laga sameynayaa wax loo yaqaano OSPF yani IGP Interior Gateway Routing Protocol okay because adiga marka shirkadaada ku soo xirmoodo aniga internet ku siinayo ani local ay tahay laana ani ay tahay laakiin adiga marka ani soo fiirinayso waana ku noqonaya because adduunka kale ku soo xiraysa so marka IGP loo yaqaan internally marka waxaan ku wada xirmeynaa core routerka okay core routerka marka shaqadiisu waxay tahay inaan ka manage gareeno ama aan ka forward gareeno daatooyinka macaamiisheena ee noo soo gudbinayaan ama anaga u gudbinayno these two levels kaliya iyo anaga routerka isticmaalana mid kale saddexaad ma jiro maybe backup sina isticmaalno mustaqbalka okay so deviceska marka guys ay u shaqeeyaan waxa loo dejiyo wax loo yaqaano standard protocol standard iyo protocol waa laba shay oo aan marna kala maarmaynin standardka maxay tahay standardkan horta 1980s ka la soo bilaabay chapterkeena qaybta ugu dambeeya ku jira aduu ilaahay waxaana loo sameeyay in shirkadaha aynan isku khilaafin hababka iskugu xirmi lahaayeen every switch oo maanta dunida yaalo shirkad walba ha soo saarto waxa arkaysan inuu leeyahay RJ45 types inuu leeyahay fiila RJ45 ha geliso copper cable ha noqoto Cat5 ha noqoto Cat6 every device oo switch ah waajib waa inay ka wada sinaadaan standardka sabab this is marka standard protocol muxuu yahay protocols marka laba oo kala qaadana mid waxa dheena waa proprietary shirkadda ayada sameeysanayda si qaas u leedahay device kale isticmaalaya malaha proprietary shirkadda ugu badan sameeysato waa shirkadda anaga maanta shahaadadeedana aan rabnay inaan barano waa switchkan Cisco agteedu yaala xagaan oo culus ma soo qaadi karo okay shirkaddan waxay samaysataa protocol ayada ee leedahay aanan lagu isticmaali karin meel kale kaliya lagu isticmaali karo deviceska shirkaddaas ee samaysay that is proprietary protocol okay shirkaddan marka Cisco haddii ayada proprietary protocols ay samaysatay waxa waajib ku ah inay la shaqeyso shirkaddan Juniper inay la shaqeyso this switch inay la shaqeyso si ay ula shaqeyso marka protocolka noocaas loo yaqaan open protocol okay ama standard protocol waa open ayadana way isticmaali kartaa shirkadaha kale way isticmaali karaan okay so dadka marka badanaa hirgeliyay standard protocolska shirkadaha ugu waaweyn waxa loo yaqaan marka IEEE mostly waxay sameeydaa wax alaal wixii electronic related la device marka soo saarta aad tiraahdo device kan HDMI ku shaqeynaa powerkiisa laga qiimeynaya nooca HDMI ku shaqeynaa laga qiimeynaya typekiisa laga qiimeynaya waxa soo dhan laga fiirinaya okay standardskaas marka ayaga sameeyaan IEEE ga iyo dabkiisa iyo waxyaabahaas ay qiimeynayaan okay wireless kana maanta arkayno aan isticmaalayno oo aan ku xarakeynayno oo telefoonada dhan ugu xiran yihiin waxa la sameeyay 1997 standard name-kiisa waxa loo yaqaanaa 802.11 waa modelka ugu horeeyay la qoray computerski ugu horeeyay laga hirgeliyay modelskana marka waxay dhacay marka in la hormariyo waxa arkaysa computer qaarkood inay ku qoran tahay 802.11a 802.11b 802.11c haddii aad rabto inaad ogaato just computerkaada leh waxa ku qortaa ipconfig let's say let me show you computerkeena cmd ga waxaan ku qoraynaa simply ipconfig/all this command marka qor waxa arkaya wireless LAN adapter ke wireless ke nooca wireless ay isticmaalaya waa AC this AC maxaa laga wadaa okay let's check it out wireless AC noocan modelkan waxaa la soo saaray 2016 of course waa powerful wuxuu ku shaqeynayaa 5 GHz uu ku shaqeynayaa
2 gigahertz uu ku shaqeynaa waa yacni labada mode ama labada frequency ee wireless isticmaalaan markay rabaan data inay diraan okay labada maxay ku kala duwan yihiin midna waxa uu isticmaalaynaa in maaragtay distance fog wax ku gaarsiino dirbi hadduu soo galo haddii qof isku aadi yacni any obstacles inaa wax dhex marsiisan waa nooca loo yaqaan 2.4 gigahertz okay ama waxaa isticmaalaynaa 5 gigahertz haddii aan rabno speed aad u weyn laakiin hadduu albaab soo dhex galo communication kaada buur oo noqonaya okay that's why marka shirkaddan ay u sameeyso marka nooca okay standardka marka guud oo internetka dhan ay isku wada fahmaan maxaa loo yaqaanaa mostly idinka waxaa aaminsantihiin OSI modelka inuu yahay standardka computers dhan ay isku fahmaan ogsama laakiin ma ahan OSB-ga ma ahan protocolka ama standardka isku fahmaan computers standard computers isku fahmaan waxaa loo yaqaanaa guys TCP/IP transmission control internet protocol this is waxa uu niraano internet language ama the language of the internet whatever it is okay every shirkad oo soo saaraysa device cusub waxa waajib ku ah in device-kaas ay ku base gareeyaan TCP/IP okay waan baranaynaa hadduu ilaahay OS modelka waxa uu isticmaali doonaa kaliya reference okay reference maxaa waa in TCP/IP-ga naftigiisa lagu fasiro okay afar qayb uu ka kooban yahay ama shan qayb uu ka kooban yahay shantaas qayb markii la rabo in la sharaxo qofka aad ugu adkaanaysa si loo jilciyo marka waxaa la sameynayaa OS modelka asigaa isticmaali doonaa waana languages badan ay engineerada ay isticmaalaan waaye kan waxaan kaga gudbaynaa marka switch router aan kaga gudbaynaa networking components sidoo kale waxaa ku jiro switch waa qodob aad muhiim u ah exam topics keena waa kana waa layer 2 okay asigana waa sida kan oo kale inaan u baranaa si hadhowda aan u xalino caqabad kastoo imaanayso sooma waaye switch muxuu yahay marka switch horta hore device-ka hadda idin tusaayay this is a switch hadda shirkaddan oo kale Juniper waxyaabaha ay ku fiican tahay waxaa kamid ah this device waxay ka dhigtay all in one device-kan switch waa yahay router-na waa yahay firewall-na waa yahay 3 in 1 okay this is why Juniper ay u tahay shirkad yacni aad khaali u ah okay certificate-keedan raqiis waa $200 of course waan ku dadaalaa ayadana inaan mar training aan ka abuuro hadduu ilaahay insha Allah okay switch-ka marka muxuu wax ku fahmaa asiga router waa soo faana laba network oo kala madax banaan isku xiraaya sooma kala madax banaan marka leeyahay Soomaaliya xafiiskayga network waa xafiiskada network waa so switch-ka muxuu noqotaa marka switch-ka dabcan wuxuu isku xiri doonaa devices hal meel wada yaala yacni single area yaala ama hal building yaalo yuu awood u leeyahay inuu isku xiro okay markii uu deviceskaas isku xiro communication ka dhex dhacayo language-ka ama protocol-ka isticmaali doonana loo yaqaan MAC address ogo router-ka waxaan niri wuxuu isticmaali doonaa internet protocol waa IP address sooma that IP address wuxuu unique u yahay computer-ka this MAC address sidoo kale wuxuu unique u yahay computer-ka labadooda farqi u dhaxeeya marka MAC address-ka iyo IP address-ka IP address-ka waxaan ku tilmaamnaa inuu yahay logical address marka leena waxaan ka wadnaa anytime uu isbedelaya hadda waxaa arkaysaa in aniga xafiiska hadda aan joogo IP address-kayga waa 192.168.144 xaafadeeda haddaa tago number kala qaadanaya oo 10.10.10.155 haddana still internet-ku waa awoodaa inaa isticmaalo so that waxay ku caddaynaysaa IP address-ka anytime inuu isbedelayo si kaloo jilicsan haddii aan ka dhigno jaamacada dhigata right jaamacada ID ka qaadato sama ID-ga maanta waxa laga yaabaa inuu yahay 23 jaamacada dhigatana ay tahay SIU for example waa ka bedelatay waxa u bedelatay Jamhuuriya ama Muqdisho u bedelatay Muqdisho markaa tagtay maxay ku siinaysaa another ID cusub ku siinaysaa sama ma ka aqbalay Muqdisho ani ID waxaan ku isticmaali jiray 25 please 25 see of course marka yeelayso sama that's why marka ID-gu uu yahay logic anytime meel kastoo aad tagtid uu isbedelaya laakiin this MAC address wax isbedelaya ma aha MAC address-ka maxaa waaye waa physically wuxuu hardwired ku yahay ama uu ku baangareysay ama lagu soo dejiyeyba device-ka isticmaalayso this is my wireless wireless-ka wuxuu leeyahay physical address this is MAC address okay number-kan caalamka haddaa soo wareegtid qof isticmaalaya ma arkeydid anuu unique iya laakiin waxaa laga yaabaa inaa aragtid qof aan ka wada simannahay intaan ogod ama xitaa 7 dheh qof 7 ever wato ma arkaysid that's why marka physical address-ka uu isticmaalayo switch-ka
Analogical MAC address ka haddii aan ku fasirno ID ga hadda ID aan ku qaadano samayn adiga marka ID ga soo bedelanaayo numberkaada isbedela magacaada ma bedeshay jaamacadda markii aad ka soo bedelanayda cali haddaa ahayd jaamacadda haddaa imaatay axmed ma noqonay of course may adigoo cali aa imaanay adigoo cali aa joogaysaa kaliya waxaa la bedeli doonaa batchkii iyo wixii aad soo qaadanaysay iyo ID numberkaada that's why markii switchka uu isticmaali doono MAC address this waa waxyaabaha badanaa ciladaha keeno device waxa dhici doona ma aragtay MAC addresseska in yani complex oo ka dhaco wax loo yaqaano isha inuu sameeyo loop inuu sameeyo MAC addresska waxa laga yaabaa qof MAC addresskiisa ID isticmaala inuu ka dogo asiga isticmaal waxaan oo dhan wada baranayna haddii ilaad insha Allah MAC addresska marka wuxuu u suuragelinayaa in daatada uu forward gareeyo iyo u forward gareenayaa cidii loogu talagalay destination si marka uu fiiriso routerkii iyo switchka shaqadooda dhan waxay tahay source iyo destination inay isku xiraan laakiin isku xirkiya wuxuu kala noqonayaa laba meel midna wuxuu isku xiraa laba kala madax banaan midna wuxuu isku xirayaa laba meel wada joogto that's why marka aan u isticmaalayna switchka todoba layer aan baran doono markii loo fiiriyo wuxuu kaga jiraa layerka labaad OSI modelka oo loo yaqaan data link layer dhamaadka oosan ku baranayna insha Allah okay switcheska marka laba nooc ay u kala baxayaan guys ogaad imtixaankan uu ku jiraa nooc waxa loo yaqaanaa layer 2 nooc waxa loo yaqaanaa layer 3 what's the difference layer 2 layer 3 okay layer 2 switch markuu yahay kaliya waxa ka abuur kartaa VLAN waxa ka samaysan kartaa basic security waxa ka samaysan kartaa yani anything u baahan tahay laakiin haddii shirkadaada ay ku weydiisay ku tiraado waxa u baahanahay switch waxa u baahanahay router macquul ma tahay in labadaba hal mar la isku xiro طبعا jawaabteedu waxay noqonaysaa ha switchkan hadda waxaa idin sheegay inuu yahay switch inuu yahay router inuu yahay firewall soma all three hal meel ku jira waa all in one of course waa ku aragteen computerada all in one ka soma all in one one switch one router one firewall soma inta buu shaqadooda way qabanayaan laakiin markii la fiiriyo xagga pricing lacagta markii la fiiriyo layer 2 markaas waa kuwa aad raqiis u ah laakiin layer 3 ga aad u qaali u yahay sababta maxaa waaye wuxuu qabanayaa shaqadii routerka loogu talagalay waa qabanaa shaqadii switchka loogu talagalay waa qabanaya labadaba hal meel ku sameeynaya okay functionality marka functionality maxay intee ku isticmaalayna switchka okay switchka horta primarily waxa uu isticmaalaynaa qulqulka daatadeena inaan dhaxmarsiino just like this goes inuu yahay okay qulqulka daatadaasna waxa idin dhaa wuxuu ka imaan doonaa kaliya LAN ama local area network hal xafiis ku imaanaya ama hal building ku imaanaya that building kaliya communication sameynaya okay that's why idin dhaaya noocyada network ugu muhiimsan waa qodobbada hadda aan soo qaadanay oo ah LAN MAN iyo WAN okay so switchka marka faa'iidooyinka uu leeyahay waxa taa wuxuu sameysanayaa waxa loo yaqaan virtual circuit maxaa laga wadaa dhalinyaro this is a switch right this is switch board uu leeyahay soma boardigan dhibaata ku dhici karto because data soo galeeda datana way ka baxay waxa loo yaqaan datada markay soo galayso ingress la yiraahdo ingress datada markay ka baxayso waxa loo yaqaan egress right so in and out kaas waxa laga yaabaa inuu dhaco waxa loo yaqaan collision inuu dhaco shil inuu dhaco laga yaabo soma shil hadoo dhaco maxaa dhacayo waxa laga yaabaa device-ka dhan inuu maaragtay boortiga dhan wada gaarsiiyo soma anaga switchida isticmaalayna marka waa smart mostly virtual circuit kaas wuxuu u suuragelinayaa in uu shilka yareeyo because waxaa la implement gareey waxa loo yaqaan CSMA CD yani oo laga soo gaabiyay carrier sense multiple access collision detection waxaa waa boortigan haddii uu dareemo maanta culays inuu kusoo socdo data badan oo 20 GB ay soo socotay data 30 ay soo baxay labadaba asaa istaagay dhexdiisa traffic camal uu leeyahay ha sameeyay data soo socoto meesha 10 ka soo diriyay 5 soo dir fahmaysa that's marka collision detection okay wireless isko kale waxay isticmaalaan CCA waxa loo yaqaan collision avoidance shilka intoonan imaanin ka hor iyo ka hortagaya okay mostly kan wuu ilaalinaya inuu shilka dhicin laakiin badanaa markuu dhacno way qabanayaan way ka daba tagayaan okay that's why marka aan isticmaalayno waxa loo yaqaan virtual circuit let me show you in packet tracer waxaan ka hadlayo okay kelimada cusub oo ayaantan social media laga isticmaalo maxaa waaye hebel dhiigu ka keenay ma
switch anaga caawa dhig ka keenayna insha Allah dabcan router shaqadiisa xoogo yar a bit further waa configuration dheeraad u baahana laakiin switch maxaa waa plug and play asoo managed waxa awood u leenahay inaan ku sameeyno tijaabooyinka u baahan okay let's take out hal switch okay switch kan waxaan niri wuxuu wax ku fahmaa MAC address dabcan configuration aan sameyn doonaa configuration kaas waa a bit too advanced for you problem malahan okay recording waa idin la wadaaga for example waxaan oo dhan wada baranaynaa waxaa leeyahay show MAC address table waxaan rabaa inaan check gareeyo switch keega MAC address uu xifdiyaa soo ma oran MAC address ka muxuu ahaa waa tiro ku dhisan computerka aanan isbedelaynin IP address ma yaqaan soo ma table-kiisa hadda waxaa arkaynaa inuu empty yahay soo ma okay waxaan ku soo xireynaa computer ku soo xireynaa eega computer laba computer ku soo xireynaa okay boortiga hadda waxaa arkaynaa inuu yahay oranjo meeshan waxaa ka shaqeynaya wax loo yaqaano spanning tree protocol STP shaqadiisu waxay tahay in boortigaada statekiisa uu ku diyaariyay yacni ma loogu talagalay data in la marsiiyo ma mudan tahay speedkii duplicates isku mid miya waxyaabahaas dhan oo check gareynaa let's forward it okay hadda waxaa ogaa computerkan inuu yahay BC0 for example this is BC0 okay kana waxa uu aqoonsanaynaa inuu yahay BC1 okay these two computers waxay ku xiran yihiin F0 iyo F02 hadda switchka hadda ku laabto hadda waxa ogaan empty no ay sooma hadda waxa arkaynaa laba god inay soo daarantay labada god waa labada god hadda sawirkeeda inay tusaay bal hadda show MAC address hadda iraado wax ma soo galay still wax ma soo galay why MAC address wax uu xifdinaa u leenahay wali wax soo gelinay si ay MAC address kan loo xifdiyo maxaa loo baahan yahay computer kan data inuu dhex marsiiyo maahan data markuu dhex marsiiyo la ogaanaya for example aad maanta gaari qurux badan hadda haysato oo guriga uu ku jiro cid ku ogaanaysa ma gaari qurux badan inaa haysato cid ku dhahays ma hebel maanta gaariyo wata because nobody knows you sama adila istaqaan si marka data u dhex marsiino computerkeena waxaan siinaynaa IP address ogaada waxaan siinaynaa IP address for example waxaan leenahay 1.1.1.1 no worries waa ID number waa wada baranaynaa muhiimadiisa muhiimadda ugu weyn maxay tahay in computerkaada laga aqoonsado network ogow waxaan ku dhahay switchka wuxuu wax fahmaa MAC address waa isla fahmaynaa hadda ID-gan ila ogaada computerkan waxaan siinaynaa another ID siinaynaa for example waxaan leenahay siina 1.1.1.2 sababta maxay tahay labada number ay same u yihiin god u dambeeyay ku kala duwan yihiin tusaale xaafadda haddii oo afar wiil ay kula dhasheen علي عبد فارح عبد الله اللي يرادو هل أبا ودليدي ذات أبا مركو حواجبا إنا سيم كودا أهاتان قف كانوا مجلسوا كدبناد of course so كان إنتان يقول إكسي فرينا صودرينا بشقط for example because data follow مركا إنت نحمر سيون كليا يا ما قادر سكيل دوان قلنا okay بشقط عن صودرنا كان هو source كان هو destination إنتوا حقوار كنا إني نوصل بحد successful okay شاشة هذه إذا كوير تاي طبعا I think Google Meeting wuxuu suura gelinayaa Zoom inaa soo saaratay شاشة فرت saan soo jiid waa arkaysaa okay hadda fariina dirna kan wuxuu ahay source kan wuxuu ahay destination sama fariintan waxaan rabnaa in real life see u dhacaysaa okay backtracer wuxuu noo suura gelinayaa qayb simulation la yiraahdo simulationka markii aan furno eeg play markaa iraado bashqada cidda ka bixi rabto eeg computer kana bashqad diray ready waa play marka iraada arag bashqad way soo baxday switch ka imaan this time switch wuxuu sameynayaa port learning MAC address ku baranaya markuu MAC address barto forward gareena you see this is why uu forward gareena qofka loogu talagalo u diraya qofka loogu talagalana wuxuu sameynayaa again uu soo jawaabaya this jawaab uu sameynaya switch wuxuu record gareysanaya marka MAC address ka adina hadhow tiga saaraysa way bal hadda aan ku laabanay switch هذا ماشي وحاول إن إمتى تاي صوما هذا مرة لازم مركب كلها ونفير ماشي نحن نوصل قلي ما قادر يسان نوصل قلي أوكي وأوجه هالسؤال أسودين السنة أستاذ الكمبيوتر كأيديا جلسي أسود كواي وما قادر يسوق قلينا يا واي أو أيدي أو 112 يسوق قلي واي جوابت الحنقنا إذا نمبر 1 أسود كحو آخرنا يا device كهذا ما قادر يسكيس it doesn't care IP address أوكي Number 2 wuxuu fiirinayaa boortigaadii aad ku xirantay
number 3 IP address ka adiga isticmaalayso wuxuu encapsulation ugu sameeynaya ama uu dhex geli doonaa MAC address ka anaga marka waxa ognahay F01 aan yareeyo kan F01 computer kan inuu ku xiran yahay Soomaaliya F01 computer kan uu nagu xiran yahay computer kan MAC address kiisa waxa u dambeeyay 7DCE intee ka keenayna haddii computer ka aan furno oo CMD ga inta ku qorno kadibna xaggan aan ku qorno ipconfig/all maxaa arkeenaa boortiga anaga ku xiranna inuu yahay fast ethernet 01 yani godka computer keyga oo fiilada ay kugu jirto loo yaqaan fast ethernet 01 this port MAC address kiis maxaa u dambeeyay physical address kiis maxaa u dambeeyay 5509 so 5509 meeshan ma noogu jirtaa switch keena ma yaqaana 5509 of course this is 5509 waxa laga bartay godkaas laga bartay anaga ma ogaan karnaa marka datadan hadda aan soo direynay MAC address sida loo reebay oo IP ga yani ma IP si loo reebay MAC address of course waa ka karnaa datada marka inta ka soo dirno computer ka hadda soo diray Sooma switch ko keena maana packet ka marka furno fiir packet ka marka aan furno bashqada aan furno computer ka iga culus mawduuca waan baranayna OSI model loo yaqaanaya fiiri layer 1 yawa layer 1 waa cable this is layer 1 okay waa physical layer waxa ku qoran computer kaada boortigu ka baxaya print okay F01 boortiga yani adi aad ingress ka sameynaydo oo adduunka kaga aadeedo waa F01 waa this good so kadib layer 2 la sameynaa switch maxay yiraahdaa layer 2 ka shaqeeya Sooma this is layer 2 okay layer 2 shaqeys maxay tahay in uu diyaariyo qofka fariinta diraya MAC address kiisa iyo qofka fariinta loo diraya MAC address kiisa so intan oo arkaysaan geeskan waxa saaran cid loo diraya kan waa source kan waa destination fariintaada hadhow waxay ka bixi doontaa F02 waa kana waa layer 1 waxay aadi doontaa fariintaada computer ay u dambayso 7DCE fariinta waxay soo direeyaa waa 5509 waa soo aragnay Sooma this waa marka aan isticmaalayno MAC address qofka loogu talagalay fariinta markay imaato fiiri aan qabanaba extra information aan ugu daraaya haddii maxaa arkeenay MAC address arkeenay Sooma switch markay datada soo dhex marayso it doesn't care this layer hadda IP address arkuna Sooma because computer ka asiga MAC address dan ma ka gelin IP address oo fiirina computer ka iyo router ka waa isku mid they don't care MAC address way haystaan MAC address laakiin data markay dirayaan layer 3 ay ku isticmaali doonaan IP address ay adeegsanayaan so switch kaada markuu wuxuu sameeyay daay MAC address ko correct IP address kaadana frame uu soo geliyay okay MAC address uu ku soo ximbaar qofkii loo keenay qofka fiiri fariinta cidda dirayso waa 1111 waa computer ka hadii aad fiirido IP address ka soo gelinay waa 1.1.1.1 you see okay qofka loo dirana waa 1.2 so that's why marka aan isticmaalayno MAC address I think ina fahanteen okay good waya aan ku laabana marka mawduucayna so virtual circuit inoo mareeday virtual circuit marka waxay ahayd afwan in meeshan ma aragtaa shil ayna dhicin hadda la say again hal mar kale aan ku soo ziyaadiyo computer kale aan ku soo ziyaadiyo waxa rabaa ina ila aragtaan waxa la yiraahdo virtual circuit in general waa fahan MAC address ka computer kana number u baahan yahay ID u baahan yahay arday cusub la diiwaan geliyo must waxa ID cusub in la siiyo 1.1.1.3 for example the 2 hadaasi maxaa dhacay hore loo qaatmaan computer ku iga diidaa meesha waxa ku qoran already waa la qaatay way 1.1.1.3 okay let's say hadda waxa ogeedeen computer ka wuxuu ku xiran yahay F03 godka isticmaal MAC address computer ka daay wuxuu xifdisanaa laba number bis uu xifdisanaa aw wuu soo galay kan automatic soo galay F03 inuu soo gal maayo laakiin inaan baranay okay problem la F03 hadda waan naqaanaa fariin hadda soo diro oo qofkan u diro fariintaada automatic waxa loo diri doonaa qofkii ma aragtay lahay kaliya simulation ka marka fiirin arag switch ka soo baxay toos aaday meeshan wax dhan dhicin this way virtual circuit out isticmaalina boortiga fariinta ka soo baxdo qofka loogu talagalay bis aadaysa ee qofkan uu soo celinaya wax soo aragteen wax loo yaqaano hub let me check hub this is hub saddexdan aan ku soo xirna hubka aan ku soo xirno
habku ma lahan wax loo yaqaan virtual circuit guys yeah dhibaatada meeshan ka dhacaysa ila arka fariina waxaan ka direynaa computerka waxaan direynaa computerka sida caadiga waxaan sugaynaa fariintan inay soo baxdo habka imaato qofka loogu talagalay loo diro soo baliniina wax ku arka fariinta soo baxday switch ka imaato switch markii imaato qofkaan rabnaa in loo diro qofkaan anaga dan lagama gelin wuu diidayaa daatada because asiga ma laha soo qofkan wuu soo celiyay arag haddana wax dhacay qofkan still daatada jawaabta asiga ma laha that's why marka habka uu leeyahay wax loo yaqaan virtual circuit that's why uu leeyahay habka waa single broadcast domain okay wax kasto soo galo uu baahinaya meeshan hadhow qof oo security threat wada hadoo imaado oo tuuga oo cyber criminal ah wuxuu awoodaa inuu idin wada dhageysto okay si uu idin ku dhageysto tools badan oo isticmaali kara loo yaqaan sniffing tools ee ugu horeysa Wireshark okay wada baranayna waxa soo idil haduu ilaahay way this marka virtual circuit muhiimadda ay leedahay switches marka guys noocyo u kala baxaan saddex nooc oo muhiim ah nooca koowaad oo meel kasta aan ku aragno waxa loo yaqaan unmanaged switch this unmanaged switch dhalinyaro xafiisyada lagu isticmaalaa jaamacadaha lagu isticmaalaa guryaha lagu isticmaalaa I think unmanaged switch active inuu yaalo na qaybta soo jira unmanaged switches ka dhalinyaro plug and play la yiraahdaa fiilada soo qaaday waa gelinay configuration kaaga baahno sida aad kaaga baahno waa gelin hore ka shaqeynaya ma maamuli kartid macnaha anaga marka cilmiga baranayno waa inaan wax maamulnaa sama si aan u maamulno marka waxa adeegsanaynaa switch loo yaqaan managed switch just like this switch okay so tusaalaha marka ninkaan ku wada qaadanaynaa Juniperka asaa igu fudud qofkan kale waa weyn aad u weyn yahay I think this is Cisco switch aad u weyn soo ma soo qaadi karaya kana marka aan tusaalahan ugu badan ku baxsanaynaa okay waata so device-kan hadda aan soo qaaday switch-ka waa managed switch inuu managed yahay maxaa noo suuro gelinayo noo cadeynayo because wuxuu leeyahay god qaas oo loo yaqaan console godkan console-ka waa management waxa galaysa dhow fiilo console loo yaqaan galayso this cable okay cable-kan shaqadeedu maxay tahay madaxan inaan gelino switch-ka madaxan aan gelino computer-ka madaxan hadda arkayno badan aan isticmaalnaa anaga hadda waa ka wada burin because waa RS232 waa old version madaxan anaga hadda waxaan isticmaalnaa USB because computer-adeena dhan ma lahan VGA you see good so noocan marka waa managed oo fiilaanada ka abuureynaa intervilanka ka abuureynaa firewall-da ka abuureynaa waa maamulanayna maamulkaas marka waxa uu sheegaynaa quality of service waxa soo sheegnay inuu ahaa waxa noo suuro gelinaya switch-keena inuu noqdo abqari yani ogaan ka qaato cidda mudan daatada in la siiyo soma that's why quality of service ay muhiim u tahay okay this switch sidoo kale muxuu u baahan yahay in si carefully anaga u control haddii anaga open ka dhigna soo manage-da wax dhan isku dhex yaacino problem xun noqonaysa maanta kale waxa aaday isbitaal Shaafi okay isbitaal Shaafi cabasho waxa ka jirta network issue dhaqaatiirtu waxay ka caawinayaan internet-ka ka caawinayaan waxay leeyihiin internet-ka daciif ah internet-ka daciif ah markay leeyihiin waa 1 saac subaxnimo ilaa 4 saac subaxnimo locally xogtoodana meel ay wada taala gurigooda u taala xafiiskooda u taala soo banaanka internet ma isticmaalaan waa local hadana waxay ka caawinayaan culays inuu jiro maxay tahay cilad 99.9 structure-kooda waxay isticmaalayaan unmanaged switch isticmaalayaan okay unmanaged switch dil isticmaal maxaa dhacay qof waliba qofku ka awood badan yahay computer-kiisa ka speed badan yahay ka cusub yahay waa ka xawaar badan yahay soo anigu computer-ka all that do yahay 100 MB qaadi karaa ee birqsi kaaga waxa laga yaabaa 1 GB inuu qaadayo because speed ugu badan adag qaadanayo priority ugu badan adag yeelanayo dhibaatada kale oo haysato waxay ahayd hal managed switch u yaalo wax VLAN ma ka abuurin yani dadkii oo dhan hal meel lagu soo wada xaabiyay qof walba isma qalaaya just like hadda meeting-kan anaga aan ku wada jirno haddii qof walba cod offer maxaa dhacay wixii la soo gudbinaya in la maqli waayo soo that's marka unmanaged adoo managed switch haysto oo mud qofka saari karo inaad open ka dhigto problem soo ma that's why marka anaga aan implement gareeyno wax loo yaqaan quality of service switches-ka kuwa kale oo casri waxa jir loo yaqaan smart switches markii aan idin leeyahay kama aqli badno managed switches-ka laakiin
waa managed switches oo lagu daray unmanaged switches macnaheedu maxaa waaye hadday waxaad isu sheegaan managed switch totally in la maamuli karin waa gashana waa isticmaalaya asigoo wax yar ama maamulo kartaa lagu siinaya oo password u samayn karto okay interface dimi karto interface daari karto laakiin feature-ada waaweyn ma leeyahay you see that's why marka smart switches aan u isticmaalaya haddii aadan awoodin managed switches of course qaali waaye haddaadan awoodin smart switches is your friend waaye haddii aan kor u yara laabano asigana maxay tahay key featureska switchka aan ka filanayo routerka waa soo fahnay key featureskiisa switchka featureka ugu weyn managedka markuu yahay waa inaan ka helnaa wax loo yaqaan VLAN VLAN muxuu ahaa VLAN horta hore waxaa laga soo gaabay virtual local area network waa big protocol aan ku wada practice gareyn doono shaqada ugu weyn oo noo sameynaya waxay tahay networkeena inuu ka dhigo segmented inuu kala qaybiyo maxaa ula jeedaa let's go back to packet tracer okay dadkan aan ku celino meeshoodii aan ku celino okay it doesn't matter godadka haddii aan kala wareejiya waxaa rabaa muhiimadda VLAN inaa aragtaan caadi ahaan waxaa ognahay dadkan inay isgaarayaan of course computer kastoo computer kale waa gaaraya sooma meesha waxaa arkaysaan successful simulationka haddii aan furno play aan dhahan arag daatada wax shiloo dhacaya ma lahan communicationka si smooth u dhacaya sooma taas isku dhaafaya way waxaan rabnaa inaan kala xirno computer 0 iyo computer 1 inaan diido labadooda inay isgaaraan laakiin aan u ogolaado PC2 inuu communication la sameeyo PC1 warkaas ma fahmaysaan kanaan ka xiraynaa labadan ogolaanayna labadan sidoo kale muu ogolaanayna inay kan soo gaaraan waxaan samaysanaynaa marka protocol la yiraahdo VLAN let's do that okay waxaan uranaynaa VLAN la yiraahdo VLAN 10 for example waxaan leenahay magaca u bixinaynaa for example block waxaan in deeply u wada baranaynaa hadduu ilaahay okay hadda waxaa abuuranay magac la yiraahdo VLAN namekiisu uu yahay block okay dadka inay communication wada sameeyaan waxa u suuragelinaya switchkaada every port uu leeyahay wuxuu ka tirsan yahay wax loo yaqaano default VLAN okay default VLAN waxa arkaysaa dhammaan godadkaada inay meeshan soo wada galayaan godadka alle maxaa ula jeedaa las hal mar aan aadna physical topology-ga aan hal mar furno okay meeshan switchkeena waa kana aniga waa switch live camal oo ekaysiin right saddexdan god yaa rabnaa inaan kala xakameeno sooma si aan u kala xakameeno marka godka koowaad waxaa ka remove gareynayaa default VLAN-ka ka remove gareynaya waxaan soo gelinaynaa midka anaga aan abuuranay let me try inaan hal mar sameeyo okay waxaan leenahay godkan koowaad yaa rabnaa inaan u diidno sooma ahayn practice-keena muxuu ah yes godka saddexaad rabnaa inaan diidno in la soo gaaro okay waxaan leenahay godka saddexaad magaciisa waa FA0/3 okay FA0/3 waxaan ku dareynaa marka bloggan aan ku dareynaa anagoo adeegsanayna switch port access VLAN for example VLAN 10 macnaheedu waxaan ruuyaa portiga ha ka soo baxo memberka inta ah ee ha ku soo biiro member ID 10 la yiraahdo inta marka ay yiraahdo oo aan jeeg gareeno waxaa arkayna hadda bloggan inuu soo galay VLAN 10 okay of course waa sameyn doontaan hadduu ilaahay ma haddii aad culays u aragto waxaan rabaa inaad dareento jawi degan inaad dareento hadduu ilaahay because waxaan wax aad sameyn doonto waa insha Allah because introduction-ka markii la joogo dabcan waa inaan wax badan ka hadalnaa si hadhowda ay noogu sahlanaato memory-ga rabaa inaan idin dhis hadduu ilaahay okay this board hadda haddii aan jeeg gareeno fariinaa ka direynaa waxuu direynaa computerka waxaa arkaynaa inay diidayso arkay waa diiday way labadan fariin isku diri karaa xaggoos maxaa arkaysaan successful fiiriya marka simulation-ka diro kan bashqadu diraya waxa dhacaya ark bashqadii oo soo diray switch-ka oo keenay guduudan waa bashqad waxa lagu sameeynaa aragya waa la ignore gareey discard lagu sameeyay discard maxaa waa la drop gareena sababtoo ah looma ogolo godkan inuu la xiriiro godadkan kale godadkan laakiin maxay awoodaan inay ayaga communication sameeyaan that's why marka switchka aan kaga sugeyno inuu noo support gareeyo wax loo yaqaano VLAN okay quality of service waa ka soo sheekeynay port mirroring waa one of the best tools oo qofka network engineering ka ama network engineer ka oo ku sameeyo wax loo yaqaan cilad bixinta
adoo joogo for example Hargeysa ama Puntland meel kamid ah adoo joogo xaruntaada data centerkii computer kamid ah wuxuu ku yiri qofka isticmaalaya ima shaqeynaa okay adiga waxaad taqaanaa gudkiisa taqaanaa soo ma let's say qofkaan kale anaga ka xirna hadda in oo communication la sameeynin soo ma anoo kale waxaan joogaa xaafadeydaan joogaa let's say ada virtual ku adagta port marine in lagu sameeyo laakiin waa fiirinayna okay VLAN ka hadda abuurnay maleeya wax loo yaqaano yes remote span mujeda haddii aan iraahdo remote span VLAN kan waxa uu ogolaanaynaa macnaheeda banaanka anuu joogo qofka isticmaalaya inaan u sameeyo wax loo yaqaano port mirroring yeah port mirroring maxaa waaye dhib kastoo ka dhaco VLAN kan cid kastoo member ka ah xogtooda helaysa hadhowda traffic-kooda helaysa okay dadna waxa awoodaa inaa analyze gareedo marka analyze gareedana aad ogaatid dhibaatada meesha ka jirto that's why marka aan leenahay switcheska waxaan u sameeynaa wax loo yaqaan port mirroring waa copy just data portgaas ku jiro dhan iyo ku soo koobiyeynaysa way operational level switcheska inta la dhigaa xagee la dhigaa ay laba nooc loo kala qaadaa switcheska kuwa waxa loo yaqaan access loo yaqaan access layer ka badan waxa lagu xiraa dadka local kulana lagu xiraa okay jaamacadu shaqaalaheeda dhan waxa lagu soo xiri doonaa switch loo yaqaan access badana waa layer 2 switch okay access kaas markii aan ku soo xirno oo aan ka sameeyno port security port mirroring key VLAN key assigning waxa markaa sameeyno switches ka loo yaqaan layer 3 switches waxaan dul keen doonaa ama dul saareena distribution xagga routerka oo ka aha H iyo core kana marka wuxuu yahay H key kana marka wuxuu noqonayaa core key okay H marka anagu waxaan u suuragelinayaa inuu aggregation sameeyo inuu isku xiro multiple access layers multiple access layer maxaa la jeednaa for example let me draw that diagram this is access switch for example okay layer 2 waa soo ma jaamacadeedu waxaan gaartay lacag yeelatay waxay soo iibsatay for example layer 3 okay labadaan isku xireynaa marka okay kana marka waxa uu aqoonsanaynaa inuu yahay distro ama distribution kan waxa uu aqoonsanaynaa inuu yahay access su'aashan waxaan ugu qornay marka switchka distribution ka wuxuu isku xiri karaa one time multiple access switches okay switchka la inta keeno kan aan ku xirno waxa arkaynaa inaan awoodno xiritaankiisa yeah these two switches hadda directly iskugu xirna haddana waxay awoodaan communication inay sameeyaan si aan u tijaabino computer cusub aan soo qaadano for example computerkan cusub waxa ku xirinaa xafiiskan hadda nagu soo biiray okay numberkiisana waxa siinayna same numbers ay isticmaalayeen oo ahaa 1.1.1.5 for example okay maxaa filanaa hadda aniga computerkan every network inuu gaaro except this network because network-aan qoladan kaliya uma diidin waxa u diidnay everybody aanan ahayn networkiis for example hadda fariin ka soo dir kan u soo dir aan tirtiro kana fariin ka soo dirayna kana u dirayna xaalkaas successful soo daatada say u dhacaysa marka arag fariintu way soo baxay switch-kaada imaanay access layer-ka way ka tagaysaa again distribution-ka tagaysaa right distribution-ka waa qabanaya again wuxuu usoo dhiibayaa access switch-ku dhiibaya access switch kadib wuxuu dhiibayaa computer-kii loogu talagalay okay this is communication-ka ka dhex dhaco badanaa locally shirkad gudaheeda waa wax ka dhex dhaco right way performance marka switcheska anaga waxaan ka filanaynaa speed iyo xawaaraan ka filanaynaa xawaaraha way ku kala duwan yihiin badanaa kuwa qaarkood waxay support gareynayaan 10 MB waa kuwa oldiga kuwana waxay support gareynayaan 100 MB okay 10 MB 100 MB hadda aragtid magacooda waxa loo yaqaanaa fast ethernet maxaa laga wadaa hadda switchkan wuxuu support gareynayaa 100 MB say u dhahay 100 MB support gareynaa good kasta muxuu ka bilaabanaa fiiri fast ethernet oo ka bilaabanaa soo this fast ethernet hadda aragtid macnaheedu wuxuu awoodaa inuu hal mar aqbalo 10 MB ilaa 100 Mbps oo data ah okay waa xawaaraha oo aqbali kara portiga si aan u jeegaleeyo waxaan tagaynaa switchkeena okay portigan magaciisa waxaa la yiraahdaa F02 right waxaan leenahay show interface F02 for example internet portigan hadda waxaan rabaa meesha inay la fiirisaan speed ama duplicates maxaa arkaysaa portigan
boortigaas hal mar wuxuu aqbali karaa inay 100 MB soo ma let's say waxaa leenahay 10 MB soo aqbalo waa soo programinayna waxaa leenahay interface F02 ilo ogow hadda waa 100 MB soo ma statekiisaan bedelina waxaa ka dhigaynaa 10 ama calaamad su'aal saar hal mar wuxuu aqbali karaa 10 ama 100 let's say 10 ka dhig mar labaad waa jeeg gareynaynaa boortigaas jeeg gareynaynaa hadday meesha 100 ahayd maxay isku bedeshay aw intee ku dhumantay yes meesha 100 ahayd maxay isku bedeshay 10 Mbps isku bedeshay so this is marka managed switches iyo ujeedooyinka anaga aan ka fulisan karno switcheskeena boortiyadooda waxaa arkayna sidoo kale 1 GB inuu support gareynayo isla switchka hadda arkayna wuxuu leeyahay boort ay ka bilaabanaya gigabyte oo laba god ah macnaha 24 kan boort ay arkaysaan dhamaantood waa fast ethernet 100 MB wax ka badan ma diri karaan wax ka weyn haday helaan waxay gelinayaan Q ay gelinayaan Q maxaa laga wadaa daatada discard lagu sameeyay discard iyo Q waxa hadda inta kusoo kala baranay kan haday data markuu dirayo discard lagu sameeyay lama aqbalin Q waxa laga wadaa daatada lama tirtiraayo lama tuuraayo meel la dhigayo cadcad loo tiraayo okay let's say hadda boortigan waxaan ku xireynaa gigabyte ka ku xireynaa okay boortigan aan fiirinayna intuu support gareynayo right now let me check do show magaciisa waa G01 boortigan 100 MB support gareynayo 1 GB arabna maxay ka 100 MB of course anaga maamuli karno waxa leenahay interface G01 waxa leenahay speed kun okay kun markaa ka dhigi maxaa dhacay boortiga waa damay sababta u damay maxaa waa cilada badana naqabsado of course 100 jeer ay qabsataan oo ogay 100 jeer ay qabsataan boortigan 1 GB ka dhigi computerkin waa damay okay maxaa dhacay because computerka isticmaaleedii wuxuu aqbali karaa 10 ilaa 100 Mbps kaliya wax ka badan ma aqbalay si uu ogaanayo computerkeeda okay kan virtualka idin tusaya kadibna kan caadiga idin tusaya kadibna session-kana meesha ku gogoynayna insha Allah kan kale hadda haddii aad physicalka ama aad config-ka fast ethernet marka aad doorto inta maxaa ka arkaysaa fiir 100 MB ilaa 10 MB soo computerka caadiga ah daarabtid inaad ogaatid calaamada window R leh kadib waxa ku qortaa command-kan oo ncba.cbr okay network adapter-kaada marka ay imaatid asiga double click si kadib waxaad doorataa configure kadib waxaad advanced kadib inta waxa ka fiirisaa speed and duplicates kadib waxaad doorataa auto negotiation inta maxay ugu qoran 1 GB macnaha 1000 MB 10 MB maxaa waay 10 Mbps 100 MB inta buu aqbali karaa 10 waa aqbali karaa 10 waa aqbali karaa this is why computerkan hadda ugu damay haddii aan ka furo computerkan boortigan oo aan ku xiro switchkan godkiisa automatic fiiladan way daarmay sababta maxaa waay switchkan wuxuu support gareynaa 1 GB support gareynaa hadda haddii aan fiiriyo switchkan eg haddii aan dhaho show interface G01 waxaa arkaynaa inuu yahay 1000 MB eg interface-kana galaya G01 speedkiisa waxaan ka dhigayaa 10 ka dhigaa boortiga waa dama sababta uu dama maxaa waay boortiga walaalkiisa maxaa ah 1 GB aan soo jeeg gareyno okay to show interface G01 maxaad ku qoran 1 GB goormo daarmaya boortiga wuxuu daarmaa markii aan ka dhigo 10 MB markaas aan gudkina soo daarmaad this is marka waxyaabaha anaga aan rabno inaan ka shaqeyno technically waa caqabadaha ugu badan oo anagana qabsan doono inta shaqada ku jirno okay waxaa kaloo dimin karo duplicate mismatch hadoo imaadaya so board density waxaa laga wadaa traffic ay boortigaas support gareynayda halkii mar okay boqol may aqbalaysaa kun may aqbalaysaa waxay ku xiran tahay again computerkaada ay ku xiran tahay okay let's say computerkayga mar labaad haddii aan fiiriyo oo aan idhaahdo configure aan ka doorto advanced meeshan waxaa leeyahay wax loo yaqaano MTU I think transmission inuu u yaqaano computerka transmission okay transmission bufferkii ana hadda waxaa u jeedaa 512 yani packet oo 10 GB hadday imaato cadcad waxaa laga dhigi doonaa 500 waxaa loola jeedaa markii aad file soo download gareynaysa waa aragtaan 10 saac u qaadana markuu leeyahay mar 5 saac mar 4 saac waxay ku xiran tahay marka packet-ka adiga lagu soo dhiibaa okay
so intaa ku ekeysiinayna insha allah sessionskeena hadda ay si nabadan ugu bilowdeen waana idinka raali gelinayaa caawa in internetka mar uga go'o mar kaamirada hagaajiyo mar codkii aan hagaajiyo marka intaa ku ekeysiinayaa wax su'aalaha haddii aad qabtaan please waad i weydiin kartaan codka furo shoot marka su'aashaada